dowladda hoose xamar ayaa dib u hagaajin ku sameysay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay ay cara dhigeen roobkii go'a ahaa ee dhawaan ka daay caasimadda. Waxaa dib u soo noqday isku socodka gaadiidkii bulshada iyadoo shaqo xoogan laga qabtay wadooyinka magaalada ee uu roobku saameeyay. Waxaa sidoo kale dib u habeyn lagu sameeyay biyo qabadiyada lagu keediyo daadadka roobka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa dhawaan ku amray qaybta howlaha guud ee dowladda hoose xamar inay si degdeg ah uga shaqeeyaan bilicda caasimadda. agaasimaha guud ee bilic socodinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir Caadi ayaa ka warbixiyay howlihii laga qabtay wadooyinka caasimadda. wadooyinkii ay shaqada ka socotay haddii ay ahaan lahayd biyo dhaamintii iyo dhuuqidii biyaha oo ay qaybta howlaha guud ka waday magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa dhinac socday oo barbar socday qaybtii nadaafadda oo ayadana meeshii ay howlaha guud ka baxdo dhameystirayay nadaafadana shaqadeedii ka qabanayay. runtii wadada hadda aan taaganahay waa ceelqalow meesha kormeerka aan kusoo gabagabeynay oo aad soo aragteen dhammaanteedba. waxaan rajeynaynaa marka haddii nimcada ilaahay timaado inaan annaguna magaaladii ka shaqeyno qorshana aan u sameyn doonay haddii ilaahay yiraahdo roobka soo socda ka sokow. agaasimaha guud ee waxda howlaha guud ee dowladda hoose xamar Cabdullaahi Axmed Muuse Caraye ayaa tilmaamay in ay weli socdaan howlaha kor loogu qaadayo bilicda magaalada Muqdisho. wadooyinka culayska biyaha ka imaadeen ee ugu horeysa wadada hadda aan taaganahay ceelqalow ee ku xigta wadada aeroboorka ee ku xigta wadada afisioni ee ku xigta wadada iskool buluusiya oo aad dareemi kartiin iyo warihii oo siigaale iyo bondheere iyo warta lambar 4 naftirkeeda oo haddaba baabuurta iyo shaqada ay ku jireen 48 saac oo la soo dhaafay. sidaas darteed dadka waxa u soo bandhigaynay culayskii shalay jiray iyo wixii dowladda hoose ay ka qabatay hadday tahay qaybta gaadiidka ee howlaha guud iyo hadday tahay qaybta nadaafadda ee gobolka Banaadir. waxaan marka shacab weynaha aan leenahay dadaalkaas iyo hawsha aad dareemi kartaan oo qabsoontay waxaa iska lahaa shaqadii dowladda hoose ay leedahay aadaan ugu faraxsanahay inaan wixii noola idmada aan qabanay. dadweynaha waxaan ku qancinaynay wixii la isugu shaqada noola amray iyo sidaan uga soo baxnaba in la arko maamulka oo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa ugu horeeyo iyo madaxda sare ee madaxweynaha ra'iisul wasaarahana inaan qaadano awaamirtii shaqada ay noo direen dadkina aan la tacaalnay intii aan ka gaarno.